munaasabada gabagabada bandhigga buuggaagta oo hore ay uga soo qayb galeen bilowgii furitaankeeda xukuumadda Soomaaliland oo fuudka kala socota dalalka dibadda iyo hal-abuur kala duwan oo sheekooyin badan halkaasi ku soo bandhigay ayaa waxa gabagabadii halkaasi khudbada ka jeediyay jaamac muuse jaamac kaasi oo sheegay in 6 maalmood ee uu socday bandhigga buuggaagtu la iibsaday in ka badan 4500 oo buug waxaana uu mahad celiyay ciidamada ammaanka Soomaaliland oo uu sheegay in kaalin wax ku ool ah ay ka qaateen hawshaasi muddadii ay socotay dhinaca ammaanka jaamac muuse jaamac waxa uu si gaar ah ugu mahad celiyay shakhsiyaad uu sheegay in taageero weyn ay u muujiyeen bandhigga buuggaagta kuwaasi oo ay ka mid yihiin Yaasiin Colaad iyo shirkadda Dalo Airlines oo uu sheegay in ay si gaar ah u taabanayso taageeradaas sidoo kale waxa uu si gaar ah ugu mahad celiyay Fadxiye Cabsiye oo bandhiggan uga timid dalka Mareykanka isla markaana buug ay qortay ku soo bandhigtay mahad celinta jaamac muuse jaamac waxa aan ka maqnayn dhalinyarada hawsha waday muddadii bandhiggani uu socday ee 6 maalmood ahayd waxaana intaasi uu ku daray inuu martidii ka soo qayb gashay bandhiggan ee wadamada jaarka uu ku bogaadinayo aqbalaadii ay aqbaleen martiqaadkii xaruntu ay u sameysay Afrika waa qaaradda Afrika waa adduunka intaas jaar baa loo yahay hal kala fogaadee laakiin intay isugu dhownahay jaarka gaarka oo ahay gaar ahaan waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa runtii dalweynaha Itoobiya oo martiinoo ahaa gaar ahaan dawlad deegaaneedka Soomaalida oo ah Itoobiyadeena rasmiga ah ee walaalaheen jaarnimadeena ay tahay mid ka dhow jaarnimada dalalka kale sida ay Djibouti noo tahay labada dad ee ay walaalanahay si gaar ah baan ugu mahadnaqayaa waana ogaynay wadi joogaan ugu dambeyn dadka ama han noqdaan qolada safka hore inoo fadhida koox kasta soo qaadanayay qof gaar ah ugu mahadnaqayay waxaan doonayaa si kal iyo laab ah inaan ugu mahadnaqo Dr. Edna Aadan Ismaaciil marar fara badan marka af Ingiriis lagu hadlayo waxay idin maqashaan the patron of the Hargaysa International Book Fair Edna waxa weeyaan waa wajigii waa aragtidii waa barnaamijkan intuu bilaabmay iyada iyo Maxamed Ibrahim Wadsame Hadraawi oo meel dhow jooga oo aan inaga fogeyn aan u ducaynay Ilaahay caafimaadkiisa uu wanaagsan yahay oo ugu wado labada qof waxay ahaayeen astaantii bandhiggan caalamiga ah ee buuggaagta Hargaysa maadaama ay adina joogto iyada u qaadaysa Hadraawina labada qof si gaar ah runtii ugu mahadnaqayaa wax weyn way yihiin waana dadkii hagaayay fikradaha barnaamijka fanaaniinteena oo fanaanku ka heeso oo kaliya maaha fanaankeena wax sawira fanaankeena gabya fanaankeena maansada kala tiriya fanaankeena farshaxanka fanaanka halkan ciyaar dhaqameedka ka ciyaarayay fanaanada caawa iman doonay halkan ka heesaya fanaanadaas mufakiriinta ee nala jooga ee markastayna garab taagnaa la'aantood may suuro galeen barnaamijkan buugga oo kaliya kuma filaadeen sidaa daraadeed waxaan doonayaa dhammaan fanaanka iyo mufakirka Soomaaliland inay daliilo mahadnaqdaan in ka badan 4500 oo buug ayaa la iibsaday 6 cisho halkan joognay waxaan malanayaa rikoortahay buugga loogu iibsi badnaa maanta markay statistics samaynayeen waa buugga uu qoray Maxamed Ibrahim Wadsame Hadraawi buugga labaad ee tira ahaan la iibsaday waa buugga uu Cabdikariim Xikmaawi qoray ee laga qoray Maxamed Mooga Liibaan Foolaad Allah ha naxariisto buugga saddexaad waa buugga Mahado ee walaashay Fadxiye Cabsiye qortay laakiin waxaan hubaa waayo tirada buuggaasi baa koobnay maalintii koowaadna waa la dhamaystay haddii malaa la
shanta cishaba ooli lahaa malaha buugaagta kale tira ahaan haddaanu ka badnan waa iska dhicin lahaa sidaa daraaddeed buuggaas waa sold out maantana ma yaallo waa istaahishaan inta sidii uu cabdishakuur yidhi magaalada xarunta dibaddeeda taagan ee 3 jeer ka badan 3dii habeenoo u dambeysay ee aynu halkan isugu nimi waxaan leeyahay magaalada Hargaysa waxay u baahan tahay meel intan ka weyn waxay u baahan tahay meelo ka fara badan magaalo kasta xaafad kasta magaalada waxay u baahan tahay xaruntii dhaqanka ee xaafadaas insha Allah waynu dhisan doonaa munaasabada gabagabada bandhigga buuggaagta waxaa lagu soo bandhigay gabagabadii ciyaar dhaqameed iyo heeso kale oo ka qaybgalayaashu ay ka daba jiibinayeen fanaaniinta masraxa soo istaagay